waxaan rabaa maantay inaan dhammaantiin idin sheego arrin dadku inta badan aysan ku baraarugsaneyn oo aysan ogeyn. anigu waxaan ahay wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. sidaad ogtihiin aan raba in aan idin sheego dowladdan waa dowladdii shacabka. waa dowladdii ugu horeysay ee qabatay adeegyo bulsho kuwii ugu heer sareeyay. dowladdan waa dowladdii shacabka. markaan idin leeyahay dowladdu waa parliamentarian government, laakiin waxaa taageera shacab from raas caseer ilaa raas kambooni. shacabka ayaa taageera. waxaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr nagu hogaamiyaan aana ku wada shaqaynaa horumar iyo hiigsi ay ku dheehan tahay nabad iyo nolol aysan ka maqnayn amaanay adeeg. waxaan marka rabaa inaadan maqlina aadanna aqbalina cid kasta ee siyaasiga ee xil uu lahay waayay in aad war ka maqashaan. waa in aadan aqbalina dowladdan waa dowlad fashilan cid idin yiraahdo walaal hay waxaan qalad warqadan waxa ay soo dhiibay ama ay ka soo baxay ra'iisul wasaaraha waa adeeg ugu socotaa saacado dadka ka hor xilka laga qaaday ya inta qaadis ani ma xilka laga qaaday ku aqriyo waxay jeedo xilka qaadis wasiir gurwade alagsada faarax og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii aan aragnay qodob ka mid ah dastuurna ha ii sheegin iga dhaaf bismillaahi masaan xilliga warweyl ciyaaray warqadan qaado koobigan anaga qaadanayno intaan qaado ama santa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war xilka iga qaadeen ka war bismillah waxaas wax la bari karam ya mar waxaas wax la aqbali karam ya allahumma najina sharraha min hadhihi ad-dawla al-federaaliyya waxaan wax jira ma anigu aan xilliga qaad waxaan kaan qasaasin ma ya billahi dhageysta. horta waxaan rabaa inaan mid idin sheego cidda shacabka oo la hadlayo dawlad in la saga dhiga la rabo adinka. waxaan nasaana dawladnimo ma dawladdan waa fashilan. Soomaaliya god dheer ay ku dhacday dawladdaanana ku mid. waxaan rabaa inaan idin cadeeyo qodobo waaweyn oo muhiim kuwaas oo aad ka dareemi kartiin ama aad ka ogaan kartiin in dawladdan fashilan. waxa kamid waxa bay dhaba ka dhacwa aragtay dawladdu waxa bay dhaba ay ka sameeyay wada aragtay. waxa ka taa kala la mid maamul goboleedyada waxa aragtaa ka dhacay Axmed Madoobe waxa ku dhacay ma maqashay hay'ad Axmed Madoobe waxa ku dhacay asiga iyo jaakulkiisi waa kala dhaxgal baynahuma xijaab. waxa inta ka sii daran oo ka sii muhiimsan oo qarannimada iyo qadiyadda dib ku ah qalbi dhagax qalbi dhagax dawladana dhigtay man minkum ya'rifu al'ana ila ayna qalbi dhagax ya melko waxaan dawlad ma ahan waana fashilantay berrina hadda waxaan idin sheegay dhamaantii inaan barnaamij usoo diyaar garowdin hadda idin sheegaanay waxaas wax jira ma wallahi billahi وزير رئيس وزير محارب إن كويديو سؤال ساعة كور نوقد بدينيسي إن الدولة في عنتها وقتي كم إذا وقت كان هذا بدينيسي مركي حلك لقى قاضي وحد ناشكتي إن أي دولة أي حنتها مركا محاكيني كرا إن مكورا أمانتي مركا دنبنا هذانا هذا اللي يشيل الدولة داديت حمانتي البرنامج السعودي. محمد أديك سؤال شان وين كويديو حيت أديك لفظي قال أنيك مركان إسكها الله شخصيا دولتي إن بقيت واجو دولتي عرت واجو ومدي ليبيا واجو أنا اللي سياسي هو ضل كان أسر شقيانا سؤال شنو عايز إن ويدي سنة ساعة صح معه وهي واحد ضل كدعوة وجوده والمواطن الصومالي إلا بيجيبه من دولة نمى وإنما مو قبل ذلك تيجي بقول لكم من دولة نمى وأرك إثيوبيا عيد ميلاد ميلاني توه أفرنا تسأل على اللي يشيس يوحى بالجنة يشيس حاجة أسرع لما ضحوا شرحه وما ضحوا شاد أديك أنا واحد سمعت ويدي كرت ما لك أقبله ما حد يشعله إحنا كلمة كذا نجدا waxaan dawlad maahan waxaan kala rabaa inaan idin sheego shacabkiina cid wax fahmaysa arab inaan u sheego berrito 2 saac banaan baxa jira magaalada qof kasto in kamid ah yimaado maqaamka muqdisho aan raadinay 3 milyan maqaam mii haysta maamul goboleed miya maxay haysta ay cashuurta laga qaada adduunka lagu qasaa meel kale loo qaado banaan baxa qof kasto dawlad waa sida ballanna waxa hadaan kan dawladdu joojin oo loo noqdo